boqortooyada Sacuudiga Carabeed ayaa sabtida oo maanta joojiyay karbaashka jeedalka ciqaabta ee lagu adeegsado sida ay ku waramayeen gudida xuquuqda aadamaha dalkaasi. Gudidan ayaa sheegtay tan inay tahay talaabo muhiim ah oo hore loogu qaaday barnaamijkii dib u habeynta ahaa ay wadeen boqorka iyo wiilkiisu. ciqaabtan karbaashka dalkaasi ee lagu ciqaabayo jeedalka ayaa waxa ay amar maxkamadeed dalkaasi iyadoo oo mararka qaarkoodna lagu xukumo boqolaal karbaash ah tan oo ay muddo cambaareen gudida xuquuqda aadamaha u doona. qoraalkan ka soo baxay gudida xuquuqda aadamaha Sacuudiga ayaa lagu sheegay inay talaabo dib u habeyn ay xaqiijinayaan inaanay jiri doonin inaanay mar kale maxkamadda dadku u adeegsadaan ciqaabta jeedalkani. maxkamadda boqortooyada Sacuudiga ayaa awood u leh in ay dadkeeda lagu helo dambiyo ay ka mid yihiin gogol dhaafka si ay ugu adeegsadaan jeedalka. waxaan sida baaray telefishinka caalamiga Star TV.